بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى أولا وآخرا ما هذا اسكله وظاهرا وباطنا، له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن. أمامكم أسوكوا بكرنه حالات كستوان كسوغان نهي، الحمد لله على كل حال. ما هذا أنت الله سبحانه وتعالى أن النعموين كتلين كرين كدب وحان هالكان mahad ballaaran uga soo jeedinayaa xogaaga yarka ah ee culayska ay yimid walaalihii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba in garanaysay oo xogtayda haysay iyo in markay dhacdada maqleen raadisay oo markay xogta saxda heleena ku shaqo tagay dhamaantood بعد الحمد لله سبحانه وتعالى وأمهد عليني والالتني موجيين وحي موجيين أخوة الإسلام كالنبي عليه الصلاة والسلام ولها مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. كنت أنو لما قبل أسيحاني وعنعني ونعبي حقا حرية لا أنت أماهاني، لكن ولا لها صوماليات سوتشيت كهبينكي iyo maalinkii qaar kharashkooda bixinayay, qaar hotel u kireystay intay magaalooyin kala duwan tageen si ay xogta u raadiyaan. dhammaantood mahad ballaaran, rag iyo dumarba waa shaqaynayeen ilaa iyo shalay markaan ka soo baxay maxkamadda ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta xogtoodu way soo gaaraysaa. awal haddii xorriyad ma jirin oo lama helaynin. mahad ballaaran marka dhammaantood aanu celinaya, hadday noqon lahaayeen eheladaydii ee qaraabadii dadaalayay, hadday noqon lahaayeen asxaabtii aan lahaa, hadday noqon lahaayeen culimmadii aanu wax isla akhrisanay wax isla akhriyeynay, hadday noqon lahaayeen ardadii, dhammaantood waa u mahad celinaya dadaalka ay sameeyeen. kulligood waa wada dadaaleen, kulligoodna waa ku mahadsan yihiin. run ahaantii hadda dadka waa la xili jiray waana la sii dayn jiray. shucuurkayga ma cabiri karo, yacni ma islihi halkaasaa joogtaa, laakiin walaaluhu waxay muujiyeen xusnu dhan iyo melo wanaagsanoo badan inay ii hayaan. waa uga mahadnaqayaa. ilaahayna waxaan u weydiinayaa subxaanahu watacaala inuu ka dhigo xusnu dhanniga iyo midka ii hayaan mid uu ii dhabeeyo ceebtayada dhammaanteenna ilaa subxaana watacaala inuu asturo. si gaara waxaan ugu mahad celinayaa dadkii gaar ahaan ayagu xilka isu saaray oo shaqaynayay oo dowladda ku jiray, madax hore ha ahaadaan ama madax dambe ha ahaadaan, ee akhbaartayda iyo xogta rasmiga hayay. waxaan kaloo idin sheegayaa ilaahay subxaanahu watacaala bacda fadlillaahi walwalka iyo murugada dadka aad ka fujiseen waxa ugu muhiimsan caruurta yaryar ee gurigayga joogta oo qaar baadiya laga keenay oo qaar xanuunsan yihiin oo dhammaantood haddee alle subxaanahu watacaala asagaa irsaaqa dadkaana quudiya, laakiin u arkaya masdarka ay risqigooda iyo meesha wax alla u soo mariyo inay ka xaniban tahay. aad iyo aad baan runtii ay u farxeen markii aanu kulannay. ayaguna waa idinkaga mahad celinayaan cid allaale ciddii dadaashay. kuwa aan wax garanayna anaa ku matalayay, kuwa wax garanayana ayaga cabiray. intaa kadib anigoo xabsigaas awal horay wax dembi ah iyo kiis aan horay nafsad ahaan ugu ogaa inaan galay ma ay jiraan. markaan xabsiga tegayna kullay dhaqan xun uguma tegin, waraysi un iyay ahaayeen. markii dambana maxkamaddu waxay sheegtay dembi hore oo aan horay u galaynin inuusan jirin, soo qabashadaydiina mid markaas yacni waafaqsan waddo saxa inaysan ahayn. waa ku mahadsan yihiin يعني بارتانكا إنay sameeyaan
waxaan kaloo u mahad celinayaa oo xogta laysiiyaan hadda war ma aan hayn madaxweynaha oo dadaal ka dadka iyo walaalaha Soomaaliyeed hadlay ka jawaabay oo ogolaaday dadka waa la iska hayaaye in maxkamad aan maaragtay tago iyadoo waqtigaas 55 cisho ah aanan wax xiriira cidna la samaynin oo aan eheladaydii iyo dadkayga iga walwalayaan 55 cisho kadib inaan dib xorriyadda u helo iyadana waa ku faraxsanahay waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeeyo waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo reer Puntland ah shaqadayda iyo waxaan ahayna hadda inaan sharaxahay looma baahna walaalihii Soomaaliyeed oo yaqaanay baa hadlay iyagaana sheegay awal waxay dawladdu sheegtay in information khaldani u soo gaaray kii saxda ah markuu soo gaarayna wadaadkaas waan fasaxnay bay yiraahdeen waa ku mahadsan yihiin idinkana 100% ayaan idinkaga mahad celinayaa waxaan kaloo sheegayaa waxaan anigu dadka u sheegaahay waa iga dhabo waa dacwad iyo siyaasadna shaqo kuma lihi awal hore uma rabin hadda ma rabo ilaahayna waxaan weydiisanayaa inta cimriga iga dhiman inaanu siyaasadii afaarahaas aanu igelin kursi uma socdo mid kale ma doonayo mid hoos iyo mid sare midna aayada iyo xadiidka waxaan ku arkaahay waan ku khasbanahay inay sidaa u qorantahay aan u mariyo waa mas'uuliyad isaaran waa ballan ilaahay ila galay quraankiisa oo ku galay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay idha khada Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nas wala taktumuna ilaahay dadka kitaabka la siiyay wuxuu amar ku siiyay dhaar adag ballan adag kula galay kitaabka inaad sheegaysaan oo cadaynaysaan oo inaan qarinayn nabiguna alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay la yamna'anna ahadan minkum haybatu an-nas an yaqula haqqan idha sami'ahu aw ra'ahu aw shahida qofkiin yeesan u diidin haybaysu dadka ka haybaysanayo xaq inuu yiraahdo hadii uu arkay ama uu maqlay ama uu goobjoog oo ka ahaa gunaanadka taamarka waxa weeye tan kale wax qadaran bay ahaayeen wax walaac male wax kala male waayo dhinac bay gama marteen Allah nabigu alayhi salatu wasalam xilay wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyakhta'ak wixii kugu dhacay dhinac kama mareen wama akhta'aka lam yakun liyusibak marka waa saasa dhacday laakiin waxa dhibta keenaya waxa weeye in qofka sumcadiisa ama la dilo ama dambiila laga dhigo ama wax loo abaabulo midda weeye midda dhibta keenaysa weeye laakiin waxaan kale oo arimahani qadar rabbi bay ku ahaadeen loo maxfuudkay ka qornaayeen annagoo caloosha hooyaday ku jirna baan ku qornayn mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba walaalaheena Soomaaliyeed dhamaantood waa mahad celinaya eheladayda waa mahad celinaya dadaashay dhamaantiina ehelkayba tihiin waana ii wada daashadeen waana ina wada gulmadeen walxamdulillah awalan wa akhiran wa zaahiran wa baatinan